dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaate habsaamin ayaate rag madaxihi kala habane hogaamiya dhiirano ujeediya hadaf laho dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaate habsaamin ayaate kuwa jira han yaro cadowga u heer yaro boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin ayuna dagin yuna dagin yuna dagin yuuna dagin ayuna dagin yuna dagin yuna dagin kuwa jira han yaro cadowga u heer yaro boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin ayuna dagin yuna dagin yuna dagin yuuna dagin ayuna dagin yuna dagin yuna dagin hogaamiyo hogaamiyo dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliyo haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin hogaamiyo dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliyo haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin madaxihi kala habane haldoorkiinoo kaco halyaygaan ku diirsanno hurdayaha toosiyo hayin ummadow ahow hayin ummadda u ahow rag madaxihi kala habane haldoorkiinoo kaco halyaygaan ku diirsanno hurdayaha toosiyo hayin ummadow ahow hayin ummadda u ahow wax badan baan haraadsanayn abaarta hadoodilayn dhirtaanyadu nagu badnay maantuuno baxayla noo baxay hillac noo baxay noo baxay hillac noo baxay wax badan baan haraadsanayn abaarta hadoodilayn dhirtaanyadu nagu badnay maantuuno baxayla noo baxay hillac noo baxay noo baxay hillac noo baxay hogaamiyo dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliyo haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin hogaamiyo dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliyo haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin
hogaamiyo dadweynaho haddaalina horu soco hirdoogliyo haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin diin rajeynaya wada shaqayn fiican waxaan rajeynayaa halkii qodobada soo qaaday inaad ka sii qaadaan meel fiicanna aad gaarsiisaan si biri ka maalin hadduu alla idmo idiguna aad u sii wareejin kartaan oo tiimka idila soo wareega ayaga laftarkoogu halkaa ka sii qaadi karaan inay gaarsiin karaan meel wanaagsan runtii si aan wada ogsoonahay magaaladan Tuqshi waa magaalada dakhliga ugu badan xildhibaanku suu sheegay 20% buu yiraahdo waxaan leeyahay 70% dakhliga u badan ba dhaqaalaha u badan meesha ka soo bixi waa tuuladan Tuqshi amba tuulada Tuqshi aniga iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada waxaan u imanay inaan soo kormeerno todobada mashruuc kamid ah todobada mashruuc ee ka socda degmada Saylac sidaad arkaysaan waxa ka socda waxa la yiraahdo magaaladan Tuqshi waxaan ka dhisaynay dugsi ka kooban laba fasal dawladda hoose degmada Saylac iyadoo ka duulaysa baahiyaha asaasiga si guud waxay wax ka qabataa say dadku heli lahaayeen waxbarasho tayo leh say dadku heli lahaayeen caafimaad say dadku heli lahaayeen biyo nadiif ah iyo say dadku heli lahaayeen amni annagoo runtii ku fargarin karin dhammaan baahiyaha asaasiga laakiin dawladda hoose degmada Saylac iyadoo ka duulaysa baahiyaha asaasiga waxay wax ka qabataa urur dhaxaad u ah si dadku u heli lahaayeen shanta shayna runtii waa shanta shay runtii lagu tilmaamo needs ama baahiyaha asaasiga haddaan mid u dul istaago waxbarashada runtii waa wax noo qabsamay 2021 iyo wax noo qorshaysan inaan qabanno 2020 iyo محمد عوالة طاهر اون كيبل تي في مقالة السيلع 2021 waxaan food hadda saarnay sanad cusub oo 2022 haddaan dib ugu noqdo qodobada u dul istaago dhanka waxbarashada runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay baahiyaha asaasiga runtii lagu horumarin karo degmada haddaan dul istaago qodobka waxbarashada sanadkii 2021 waxaan laba fasal ka dhisnay tuulada amba degmada amba magaalada Tuqshi sidoo kale waxaan laba fasal ka dhisnay tuulada Togay waxaan sidoo kale laba fasal ka dhisnay gargaara galbeed sidoo kale waxaan laba fasal ka dhisnay madax dadley waxaan sidoo kale yeedna deerkii weynaa magaalada Cabdiqaadir ka dhisnay isla sanadkan gudihiisa haddaan dul istaago caafimaadka runtii caafimaadku wuxuu ka mid yahay baahiyaha asaasiga wana adeegyada ku jira barnaamijka maamul-daadejinta runtii haddaan caafimaadka dul istaago waxaan sanadkan 2021 dhisnay oon dayactir ku sameynay ilaa 4 MCH Saylac MCH Cabdiqaadir MCH Xareer tiimka KMC ka socda wasaaradda arrimaha gudaha oo idila jooga inoo martiya masaddexaad waxaan mahadcelinayaa bulshada qiimaha badan ee ka soo qayb gashay kulankeena runtii soo ajiibay kulankii iyo ogeysiiskii waxa weeye uga yimid maamulka dowladda hoose iyo qoladii dala jooga KMC runtii kulankan maanta wuxuu daaran yahay haddaan horudhac iyadoo guud ka bixiyo waa is-xoguraysi iyo inaanu ka warbixinno mashaariicdii qabsoontay 2021 iyo mashaariicda noo qorshaysan ee aan rabno inaan qabanno 2022 sidaad ogsoontiin dowladda hoose degmada Saylac iyadoo ka duulaysa baahiyaha asaasiga waxay wax ka qabataa oo ay focus ka saartaa siday dadku heli lahaayeen number 1 biyo nadiif siday dadku heli lahaayeen waxbarasho tayo siday dadku heli lahaayeen amni siday dadku heli lahaayeen waxa weeyaan dhismo hoosaadyo iyo wax la yiraahdo infrastructure iyo siday dadku heli lahaayeen caafimaad runtii kullay waxa weeye waa laynoo soo jeedin doonaa waad arki doontaa waxa weeye baahi marka waxa weeye baahidu sideeda marta waxay ka timaadaa waa dadka iyo deegaanka runtii sanad kasta sidaad ogsoontii waxaa jira tiim iskugu jira xildhibaano iyo waxa la yidhaahdo dowladda hoose degmo kasta way tagaan waxay ka soo qoraan baahiyaheega runtii baahiyaha bulshada laga soo qoro uun baan annaguna waxa weeyaan siday u kala mudan yihiin waxa weeyaan
وفلنا هذا دمر يسميه كل يوادك يدوتا ولا كشر يدونا لبكون لبعتن يكو وحفلي إلا سجد الشهور لبكون لبيه لبعتن وحرجين إنه ميزانية دوق تشرب إلا تطبيق هون الشهور كل برستيج كفا فاصل وأتكلم في دوتا حتى أقول لبكون لبعتن كل كنا المانت وحورت الدراية waxbarashaduna waxay ka mid tahay baahiyaha asaasiga waxaan rajaynaynaa bilaha iyo sanadada soo socda amba 2 sano amba 3 sano amba 5 sano soo socda hadii Ilaahay nagu simo inaynu wax ka bedelno waxa way qaabkan maanta ay taalo degmada Sayda haddaan ku soo noqdo runtii aynu keenno hoygeeni waxaan rajaynayaa inaan uga faa'iideysano sida ugu macquulsan idiguna waxa aad su'aal haysaan iyo wixii ku saabsan qaabka dakhli loo kordhinayo qaabka dakhli loo soo ururinayo qaabka iyo istiraatiijiyadaha aad adeegsataan marka dakhli ururin aynu sameynayno ka degmaha iyagana inaad la wadaagtaan waxaan rajaynayaa in iyaguna ay idiga caawin doonaan maadaama ay yihiin team ay badan yihiin team expert oo khubaro oo runtii badan ka soo wada shaqeynayay hawlahan dakhli ururinta sida ay hindaba sheegtay GBLG-ga runtii waxa laga faa'iido waa system hadduu systemku ku dhisan yahay shay kastana waxay ku noqonayaa shay fita runtii hadduuna dakhli jirin wax kale oo kala soconaya male waxaan rajaynaynaa degmadani 90% waxay ku xidhan tahay haddaan hordhac yar guud ka bixiyo waa customka runtii daily collectionkeega waxaan rajaynaynaa oo miisaaniyadda sanadkan aan ka dhignay waa 2 bilyan weli waxaan aaminsanahay 2 bilyan yarta degmooyinka qaarkood Hargeysa Booramiyo magaalooyinka kale hal cishayba malaha 2 bilyan ku soo xareeya laakiin waxaan rajaynaynaa annagu inaan kordhino intii itaalkeega qorshayaal badan baa runtii nooga yaal meel buu marka hore dakhligaas marayay sanad waa la kordhinay sida halka ka muuqata marba kor u kac ayuu sameeynaya waxaan rajaynaynaa sanadaha dambe sanadkan inaan halkan u qorsheynay soo gaarsiino sanadaha dambe ka sii dhaqaajino dhanka mashaariicda waxaan cishadii loo wareegay ilaa 6 mashruuc maanta waxaan ku wareegsanayaa 10 mashruuc muddada lixda kulan muddadaas qaban lixda bilood haddii loo qaybiyo bishii inta mashruuca lagu talagalay bil kasta ay fulayaan 2 mashruuc runtii muddada kooban jooga waxaan focus saaraynaa aniga iyo maayirka iyo maayirkeega iyo dhammaanba shaqaalaha dowladda qaybta dhaflamanka qaybta horumarka markaas waxay isku taxalluujiyeen in wax muuqda oo la taaban karo shayga aan ka tagin tikraamkeeda